السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامتين أصحابك كحران كنالكينا. ما توقع لدونا معلومات كسابسن تيك توك. آلة الصومالي دو استعماله يقدم كلن على استعماله. وحنا حلقة وصل من حقوقين هذا كوين تيك توك. تيك توك أي أشياء لقليها ودن كشينها. waxaan la sheegay inay adeegsadaan ama ay isticmaalaan dad lagu qiyaasay 500 milyan. TikTok ayaa sidoo kale ah social media ay dhalinyarada ama dadku isaga duubaan muuqaalo gaaraya 15 ilbiriqsi iyagoo hadba wax sameynaya. Isticmaalayaasha hadda adeegsada aaladan ayaa da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 sano iyo wixii ka yar. Laakiin sidoo kale waxaa jira dad ka weyn 20 sano oo isticmaala aaladan. laakiin si tirkoob la sameeyay ayaa lagu sheegay dadka ugu badan ay isticmaalaan inay yihiin 20 iyo wixii ka yar. TikTok ayaa sheegtay in qofkii 13 ka weyn uu isticmaali karo aaladan iyadoo waalidku ay xakameynayaan. TikTok kor dad badan oo adeegsada moobilada ayaa wax la soo dhigeen barnaamij fiidiyoo la mid ah oo la yiraahdo Musical.ly. barnaamijkaas ayaa ahayd barnaamij isna uu iska lahayd shirkad dalka Shiinaha. TikTok ayaa Musical.ly waxay ku iibsatay lacag gaaraysa 1 bilyan. kadib markii ByteDance oo ah shirkadda sameysay TikTok isla markaana gadatay Musical.ly ayaa labada application isku daray. kadib waxa ka soo baxay TikTok-an hadda la isticmaalayo. TikTok waxa dalka Shiinaha loo yaqaanaa Douyin. sanadkii la soo dhaafay waxaa si kumeel gaar ah looga mamnuucay TikTok dalka Hindiya kadib baaritaan ay sameeyeen sirdoonka dalka Mareykanka taasoo dhalisay ganaax dhan 5.5 milyan oo dollar. baaritaanka ay sameysay sirdoonka Mareykanka ayaa lagu sheegay in TikTok si ula kac ah ay u kayso xogaha dadka isticmaala aaladan. Alex Stamos oo ahaa madaxii hore ee amniga Facebook ayaa walaac ka muujiyay kadib markii ay soo baxeen warbixin ku saabsan muran u dhaxeeya shaqaalaha shirkadda ByteDance ee Mareykanka iyo Shiinaha. Mesleedahay TikTok khatar ay ku tahay Soomaalida isticmaasha. haddii jawaabtaadu ha tahay qaybta commentiga wax nagu soo qodhaa fikirka ama waxyaabaha aad kala kulantay TikTok ee Soomaalida dhibta ku ah. anigoo insha Allah qaybta labaad ee barnaamijkan ku soo qaadan doona faalooyinkiina. موضوعاً كاهني تيك توك ما أنت يا كسوق يعني أنت كل منا كنت تدم بحسله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.